السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. habeen waxaan wanaagsan daawadayaal meel kasta joogtaan waxaad ku soo dhawaataan war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray caawa. qodobada ugu muhiimsan ee idinku haynana waxay yihiin wasaaradda arrimaha islaamka ayaa bilowday howlaha wacyigelinta xujayda sanadkan. dowladda Mareykanka ayaa cambaaraysay isku dayga afgambigii dhicisoobay ee Turkiga. qodobada iyo qodobo kale ayaad warka ku daawanaysaan imikana kusoo dhawaada warkii oo dhan. waxaynu ku bilaabaynaa warka dalka. boqortooyada Maroc iyo Jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxay kala saxiixdeen heshiis ku aadan xoojinta iskaashiga farsamo iyo adeegyada gaadiidka hawada. heshiiskaasi waxaa qalinka ugu dugay Jamhuuriyadda Djibouti wasiirka gaadiidka Maxamed Cabdulqaadir Muuse, waxaa dhinaca Maroc ugu dugay dhigiisa dalkaasi Aziz Ar-Rabaah. heshiiskaasi ayaa waxa ujeedada ka dambeysa ay tahay in labada dal ay u ogolaadaan shirkadaha gaadiidka adeegsiga hawada, taasi oo la xidhiidha qawaaniinta isku xidhka gaadiidka hawada iyo xoojinta ganacsigooda intaba. sidoo kale heshiiskaasi waxaa qayb ka ah iswadaarsiga khubaro u leh aqoon guud gaadiidka hawada iyo tababarsiinta shaqaalaha ka howlgala intaba. wasiirka gaadiidka hawada ee dalkaasi Aziz Ar-Rabaah waa dalka Maroc oo halkaasi ka hadlay, waxa uu sheegay in heshiiskan uu qayb ka yahay iskaashiga laba geesoodka u dhexeeya labada dal. waxa uu sahlayaa isweydaarsiga iyo isdhaafsiga shabakadaha gaadiidka labada dal. geestiisa wasiirka gaadiidka ee Jamhuuriyadda Djibouti Mudane Maxamed Cabdulqaadir Muuse waxa uu tabaxay in heshiiskan uu xoojinayo awoodda shaqowgalka ee waaxda gaadiidka rayidka ee Jamhuuriyadda Djibouti. xafiiska ciidamada qalabka sida u qaabilsan shaqaalaysiinta iyo qorista ciidanka ayaa ka wargelinaya murashaxiinta ku jira liiska in looga baahan yahay inay iskeenaan garoonka Xaaji Xasan Guuleed, halkaas oo ay ku marayaan imtixaanada ficilka ah. liiska magacyada waxay dadweynuhu ay ka heli karaan arundusmayada caasimadda iyo xarumaha prefecturiyada gobolada. murashaxiinta waxaa laga dalbayaa in ay yimaadaan saacad marka ay tahay 6:15 aroornimo ayagoo sita kaarkooda wadaniga oo originaalka ah. waxay kala yihiin maalmaha ay marayaan qaybta koowaad Arbacada 3 Août, qaybta labaad Khamiista 4 Août, qaybta saddexaad Sabtida 6 Août, qaybta afraad Axadda 7 Août, qaybta shanaad Isniinta 8 Août iyo qaybta lixaad Salaasada 9 Août 2016. xogeeye dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha ayaa saaka qabanqaabiyey munaasabada lagu soo gabagabeeyey tababarka dhinaca informatiga oo ka dhacay xarunta horumarinta bulsho ee Waxladaaba. munaasabadaasi waxaa ka qayb qaatay xogeyaha guud ee xoghaynta dhalinta iyo ciyaaraha Mudane Wahiib Xamadu Maxamed iyo gudoomiyaha degmada Balbala Yuusuf Xasan Nuux. waxaa iyaguna u joogay dhalinyarada ka qayb gashay tababarkaasi iyo waalidada iyo waxgaradka degmada Balbala. agaasimaha CDC-ga Waxladaaba ayaa ugu horeyn ka waramay macno faahfaahsan ka bixiyay tababarkaasi oo ay ka faa'iideysteen dhalinyaro iskugu jira wiilal iyo gabdho. qaar kamid ah waxgaradka oo iyaguna ka hadlay waxay mahadnaq ballaaran u soo jeediyeen xoghaynta dhalinta iyo ciyaaraha kadib taageerada joogtada ee xoojinta tababarada dhalinta. ugu dambeyn dhalinyarada tababarkaasi dhameystay ayaa waxaa la guddoonsiiyey shahaadooyin ka turjumaya aqoonta ay ka kasbeen tababarkaasi. waxay sheegeen in aada ugu niyadsan inay ka kasbadeen xirfad iyo aqoon mug leh oo suuro gelinaysa helida fursado shaqo. gudoomiyaha degmada Balbala Yuusuf Xasan Nuux oo madasha ka hadlay waxa uu ugu horeyn u hambalyeeyay dhalinta tababarkaasi ee ka faa'iideystay. joogto oo nala jooga reer Balbala hadaan waan ku mahadnaqaynaa wadaradaas. saddex sidii ku taala koominta Balbala waa sidii isagu horeyn Waxladaaba oo inoo ilaa maalintii oo mafsaax la siiyay ilaa maanta waa maalin quraatay meel dhagax ku tuurin in yar oo rabsho laga maqlay waa sidii Waxladaaba weeyaan. waxa keentana mas'uuliyiintii konseerkatiga iyo mas'uuliyadda CDC iyo abuyaashii hooyooyinka xaafadda baa nabad jecel Waxladaaba oo ilaalsada waxoogi oo wax kasta dawladda u qabato gacanta ku haystaan oo jecel yihiin. waa lagu maarnaraya ilka maarnaqaya kuwa wax baray iyo kuwa wax bartay labadooduba waa mahadnaqayaa oo waa nagu duceynaa insha Allah.
xogayaha guud ee xoghaynta dhalinta iyo ciyaaraha mudane wahiib xamado maxamed oo isaguna halkaasi ka hadlay waxa ugu horeyn uu mahadnaq ballaaran u soo jeediyey waxgaradka dhalinyarada iyo haweenka xaafadda Waxradaaba sida deeran ay u soo dhaweeyeen isaga iyo waftiga horkacay intaba waxaana uu sheegay inuu aad u soo dhaweynayo rabitaanka dhalinyarada tababar ka faa'iideysay oo muujiyay guri haween u suura gelisay inay ka kasbaan aqoon iyo xirfad badan oo dhaxal siinaysa inay ka faa'iidaan fursadaha ka jira suuqa shaqada waxa uu sheegay in tababarkan uu si dhab ah uga jawaabayo siyaasadda la dagaalanka camal la'aanta iyo fududinta shaqo gelinta dhalinyarada dalkeena tababar ku aadanaa xoojinta xuquuqaha caruurta iyo ka hortagga gudniinka fircooniga ayaa waxaa laga soo gabagabeeyey howlka shirarka ee wasaaradda arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta gaar ahaan dhismaha waaxda Somali Pen tababarkaasi oo socday muddo 4 maalmood ah waxaa soo qaban qaabiyay wasaaradda arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta oo kaashanaysa hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan caruurta ee UNICEF munaasabada gabagabada tababarka waxa uu joogay agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda Ikraan Cusmaan Cige madaxa xafiiska barnaamijyada Zainab Muuse Dawaale wakiilka UNICEF imaamyada iyo culumoodiinka tababarkaas waxa aqoontooda ka bixinay laba culimo oo kala ah Sheekh Shamsuddin iyo Sheekh Cusmaan Xuseen waxaana ku saabsanaa ballaarinta wacyigelinta lagaga hortagay gudniinka fircooniga xoojinta xuquuqaha ubadka iyo tababarsiinta culimada iyo imaamyada qaabka loogu gudbinayo fariimaha wacyigelineed bulshada agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda iyo madaxa barnaamijyada ayaa halkaas ka hadlay xuquuqda awlaadaba waxaan anagu haddana UNICEF tanahay mar walba oo nigarab joogna wasaaradda awqaafka barnaamij imika bilaabmay maaha waa 2008 waxaan bilownay laakiin waxa qiimo badan oo maanta aanu arkay saacad baan la joogay laakiin waxaan arkay sida loo tababarayo ee leeni barayo sad fariimaha u tabin lahaydeen sida ugu qurux badan fariimaha u tabin lahaydeen marka waxaan rajaynaynaa insha Allah inaad waxa maanta leeni baray aad ku amal fashiin say walaalaba soo sheegtay waan garab joognaa mar walba waana niimanaa reeshoonyada iyo meelaha ka wacyigelinaysiin dadka bulshaduna badada waxay carabka ku celceliyaan oo idhaahdaan haddaan runta isku sheegno culamaa u diinkaan rabnaa inay naga idhaahdaan wax la idhaa guditaanba ma jiro haba yaraadee waan ognahay oo daraasaad ba la sameeyey guditaanka qaarkii imika uu soo yaraanaya laakiin mar walba waxa lagu celiyaa carabka mee sunnii baa la wadaa waad ku mahadsantihiin haddaan aan wax ka sheego barnaamijkan farmaasoonka nii soo socday 4 cisho barnaamijkan oo ku saabsanaa si lagu siiyo tawciyo farmaasiyo marka oo looga gol leeyahay inaad tababarka aad halkan aad ku soo qaadateen 4 cisho inaad ka miro dhalisiin markaad aad tagtiin reeshoonyadiinii taa oo ay wasaaradda iyo hay'adda UNICEF-tu anuga mahad celinayno markasta garab nagu siisa sidii looga tagi lahaa caadada fircooniga xun ee u fiicneen caafimaadka gabadha bulshadana u fiicneen gabdhihii oo markasta dhibaato la kulmayo markaas waxaan anaku ay wasaaraddu ay markasta ay farmaasoonkan oo kale UNICEF ay u qabato waxa waan si aad shicibka aad la kulmaysiin aad u wacdi gelisiin aad u baraarujisiin Sheekh Cabdiraxmaan Shamsuddin ayaa isaguna waraysi aan la yeelanay kadib munaasabada gabagabada tababarka waxa uu ka waramay ujeedada tababarka waxaana hadaladiis ka mid ah sheekh waxaan halkan ku soo gabagabeynay seminar culimada loo sameeyay oo socday 4 cisho oo halkan tababar laga siinayay sida bulshada ay u qancinayaan ay ula hadlayaan gaar ahaan waa culimadii ka shaqeynayay saantaro 330 oo xuduud jamhuuriya ku leenahay gobolada iyo magaaladaba waxaan kala hadalnaa arrimaha bulshada sidii loo dayn lahaa masalan gudniinka gabdhaha yar loo geysto jirkooda loo googeynayo iyadoo wax keensanaya yacni dhibaatada intaa leeg in loo geysto gabdhaheena waxaan ugu yacni kalifayna ayna jirin waxa kaloo laga hadlayay xuquuqda atfaalta ciyaalka mabaadi 7 laga hadlayay ilmaha yar markuu calooshii hooyadii ku jiro sida loo ilaalinayo caafimaadkiisa iyo cuntadiisa hooyadii kolku soo dhasho sida loo soo dhaweynayo loogu farxayo wiiliga gabadh midka doonaba iyadoon loo kala yaxanayn waxa laga hadlayay sidii loo daryeeli lahaa xuquuqda awlaadda loo ilaalin lahaa tacaddi iyo xadgudub in loo geysto loo ilaalin lahaa oo mawduucii saddexaad ee laga hadlay arrinta waxay ahayd tababar culimada loo sameeyay sida dadka ay ula hadlayaan sida ay u qancinayaan codka ay adeegsanayaan
waxa weeye hadal la tuultuuro un maahine hadal dadka soo jiita oo qanciya oo qalbigooga gala mawaadiicda hadday ka hadlayaan xagga gudniinka hablaha ama ay ka hadlayaan xuquuqda ama ay ka hadlayaan moogtahay bulshada arrin kaleba u sheegayaan si dadku ay kuu dhegaystaan oo moogtahay aada u soo jiidato dee iminka cilmi iyo aqoon baa la gaadhay ayaa tababar laga siinayey waxaan u mahadnaqaynaa moogtahay qaybta wasaaradda ee ka shaqeysa qaybta barojeyada saasoo kale waxaan u mahadnaqaynaa munadamada alumma mutaxida unicef. wasaaradda arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta ayaa bilowda howlaha u diyaargarowga iyo wacyigelinta xujayda sanadkani. wasaaraddu waxay xalay qabanqaabisay barnaamij si ficil ah loogu muujinayo hanaanka howlaha xajka. barnaamijkaas isaga ah ayaa waxa uu ka qabsamay garoonka ciyaaraha ee guleed, halkaasi oo lagu marti qaaday xujayda sanadkan isku diyaarisay waajibkaasi oo tusaale iyo tilmaam muuqaal ah laga siiyey qaabka sugan ee xashka iyo xaajiyada looga baahan yahay in ay ku gutaan waajibkaasi diiniga ah. waxaa iyaguna u joogay mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta iyo culamaa udiin. barnaamijka lagu tusaaleynayo rugniyada xashka ayaa waxa uu kasii soconaya garoonka guuleed ilaa iyo habeenka jimcaha ee nagu soo aadan. imika dhakhtarka daraal xanaan oo ah dhakhtar si gaar ah loogu talagalay la socodka caafimaadka haweenka uurka leh iyo u diyaarinta haweenkaasi in sida ugu haboon hooyadu ay u umusho. dhakhtarkaasi waxa uu adeegaa dhammaan haweenka caasimada iyo weliba kuwa gobolada, waxaana uu ka kooban yahay qaybo badan oo ay kamid tahay qaybta u diyaargarowga dhalmada iyo wacyigelinta haweenka umulaya. waxaana halkaasi ka howlgala umulisooyin aqoon leh hawsha ay fulinayaan oo haysta shahaadooyin. waxaana arintaasi wax ka weydiinay mid kamid ah umulisooyinka oo inooga warantay shaqooyinka ay haweenka uurka leh ay u qabtaan iyo howlahooga intaba. حاجة وسيرفيس جديدة on سبيان تكو سميناه pour les femmes isnaamaha sagaalka bilood ku jira doonaya inay daar xanaan ku dhalaan visit kooga afraad baan ugu sameynaa xagan saddexda visit kale waxay ku soo sameeyaan soontarada ku dhex yaala xaafadahooga sida Angela Faraxaad Ibrahim Balala ay ku soo sameeyaan xagan baa loo soo orienteeyaa markay sagaalkii bilood hadda toldhalmadii ku dhow yihiin bay noo yimaadiin consultation baan u sameynaa pour que نعم سيدا نسي أوغال لهين دباتد نعم ده دو تولدي سنان تقبسن لهاد بلا ديق نمو ديق أوكي يرادا يودنه كحسنو نعم ديل أوغوين يان سي أوغالنا وحيد باثولوجي مركا كسو بودي لها يان سي أوغالنا سانمي دي نوغو مركا سانتو إيتي مادو فيش بانو سمايا أنا نكو سماي سناي أون لينا هاي دار حنان فيش تابانو سماينا ريجيستران لينا كو قرانو مركا إيتي مادو حانا إيغا كونجكتيفين congestif كيغا tension ga laga qaadaa iyo temperature ka sidii caadiga ahayd oo deemka lagu hana waa la eegaa caloosheeda mitirka waa loo sameeyaa ilmaha yar waa loo dhageystaa dhiig baan ka qaadnaa qiyaasta dhiiga iyo magaciisana aan u sameeynaa psychologiga VIH tan aan u sameeynaa markaan inta u sameeyo meel kale waxa jiido la furay oo isnaan kasto daar xanaan ku dhashay ay ka faa'iideysan karayso in preparation à l'accouchement baa leeyahay kinesiga ayaa sameeya wala sii diyaariyaa isnaamaha dhalmada loo sii diyaariyaa oo isboorri waxba la ciyaarsiyaa waan kaxayaan marka inteeda u dhameeyo waan kaxayaa inanta kolleegaygan u geeyaa hadii tool xagaaba xiriir ka sii wataan waxaan ku waanilaa hooyo kasto u guba oo doonaysa daar xanaan ku dhasho iyo timaado visit saddexda visitiyada soo dhameysatay xaga noogu timaado anana kuna u sameeyno kii afraad après aan geeyno kiineega sidii loogu sii diyaariyo dhalmada loogu sii diyaariyo
ururka lagu magacaabo codka gabdhaha ee ka howlgala gobolka oboq ayaa waxaa xalay uu hodheelka Sheraton ku qabanqaabiyey barnaamij qaaran ururin ururka ah oo loogu talagalay samafalida iyo taageerida dhalinta kasoo jeeda qoysaska hayntooda hooseyso ee gobolka oboq gaar ahaan gabdhaha. habeennimadii xalay kulankaasi qaaran ururinta ayaa waxaa lagu gorfeeyey qodobo ay ka mid yihiin ahmiyadda taageerada gabdhaha waxbarashada ku jira iyo suuragalnimada dhiirigelintooda sanad dugsiyeedkan soo socda. ururka codka gabdhaha gobolka oboq ayaa waxa uu ololeeyaa horumarinta gabdhaha gobolka. munaasabadaasina waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan. mid ka mid a dadka ka qayb qaatay barnaamijkaasi qaaran ururinta ayaan warays la yeelanay waxaana inaga warantay ujeedada kulanka ka dhacay Sheraton xalay. association-gayga waxaa la yidhahdaa la voix des jeunes femmes de Bok. waxa weeyaan waxaan dhisnay décembre 2013. kolka waxa weeyaan objectiifka hadafkaygii waxaan ku sameynaa islaamaha, ubadka, agoomaha baan waxaan u tiri karayno aan eegnaa aan caawinaa. kolkii horeba faaskii ugu horeysay sanadkii hore waxaan siinay bahayd ubadkeere oboq un jooga caasimadda un jooga oboq dhexdeedii. maantana haddana waan ku celinay sanadkan waxaan la dadaalnay inaan nidhaahdo oboq un maaha iyo hareeraha tuulooyinka yaree hareeraha laga dhisay jirana halkaana waan deeqsiinaynaa baan nidhi. kolka waxaabaan u sameynay gaalada charité wax la yidhaahdo dadkii baa nagu caawiyey Sheratonkaan ku sameynay. kolka intaa dabadeedna wixii aan helno buwagii shandadihii caruurtii yare oo tiiga sankeemaanee ka dallacay siizamka gali doona baan u wada sameeyaa baan wada siinaynaa wax qalab iskoolka lagu wada weydiisto oo dhan. intaanana soo xidhan hadalkayga waxaan doonayaa inaan remerciement association-ga afkayga inaan ka nidhaahno premier minister ko caawiye aad iyo aad noogu caawiyey iyo wasiirka iyagii iyo secretariat jeunesse sportka oo na gacan qabtay iyo dee wixii meel dheer iyo meel sokaba naga caawiye ha noqoto wax qalab ahaan lana siiyey iyo wixii xitaa noo dadaalo nala daalayba oo nala qabqaabi arrintanba mahad weyn baanu celinaynaa. kulan khubarada ciyaaraha badweynta Hindiya ayaa waxa uu ka dhacay caasimada martigelis sanadkan ciyaaraha ee Antananarivo ee dalka Madagascar. waxaana kulankaasi u joogay wakiilada wadamada xubinta ka ah ciyaaraha waxaana loogu talagalay dhamaystirka u diyaargarowga iyo qababaalinta tartanada kala duwan ee ciyaaraha si oo Jamhuuriyadda Djibouti martigelinayso 2018. ururka CGC loo yaqaano waa wadanada wadaaga badweynta Hindiya. shirka waxaa laga hadlayay habsami socodka ciyaaraha ka dhici doona Madagascar. gaar ahaan haddaan ka hadlo Djibouti waxaa uga qayb galaya 8 ciyaartooy oo qaybnaha yihiin orodada, qaybnaha yihiin tennis table-ka. dhalinyaradaasi si fiican bay isku diyaariyaan. waxay joogaan waqtigan hadlay waxay joogaan tiraanadii bay joogaan. shirkan haddaan soo noqdo waxaa laga hadlayay nidaamka shirku isugu daba dhici doono iyo waqtiyaday bilaabi doonaan. ciyaaraha orodadu waxay bilaabi doonaan bishan 8 ciyaaraha tennis table-kuna waxay bilaabi doonaan Britain insha Allah. waxaa laga sugayaa in confirmation farsamo yaqaanadii oo waqtigan imkaan hadlayo wada hadlaya si ay u ansixiyaan kalendariyaga ama programka jidka soo baxaya. dhalinyarada halkan jooga wallahi aad iyo aad buu fiican yihiin. waxaan u rajaynaynaa guul baan u rajaynaynaa insha Allah. waxaan rajaynaynaa in ay kaalinta ugu horeysa ay soo wada baxaan dhalinyarada reer Djibouti ee jamhuuriyadda. waxaan kaloo shirka lagu soo qaaday sanadka hadduu la yidhahdo 2018 Djibouti ciyaarahan qaabili doonta wadankeena lagu qaabili doono ee wadanada kale ay noo martin noqon doonaan wadankeena iman doonaan ciyaartooyasha basketka kubada badan iyo ciyaartooy badan iskugu iman doonaan hadduu la yidhahdo wadankeena. taana waana weydiiyey si qurux badan waxaan nidhi waan nii qaabili doonaa insha Allah
2018 waxaa kaloo jirtay ciyaartooy maahin dhanka waxaa jirta dhanka sportka ma dhanka jeunesse jirta waxaan taasna haddii la yiraahdo aan ku tala jirnaa in xarumooyin badan oo dhalintu ay ku tamashlayso ay jirto wadankan anaguna aan ka faa'iideysan doono wasaaradda aan weydiisanay dhalinta iyo sportiga inaan aragno siday habka amba maamulka amba se tamashlaynta dhalintu sida loo maaweeliyo amba sida dhalinta loo prise en charge amba insertion loogu sameeyo aan wadankan aan haday wax jirto aan ka birsan lahayn taan haddii la yiraahdo waan ku tala jirnaa inaan soo indhayno aan wadankeena haddii ay waxde ay ka qabteen dhanka dhalinta oo insertion socialka amba professionnelka de jeune-ka inaan aan ku dayano aan ka soo indhayno aan soo aragno waxay hawl ka qabteen and haday wax qurux badan jirtin aan inakuna haddii la yiraahdo aan ka daba eegano insha Allah Djibouti qodobada wararka caalamka idinku hayno waxaa kamid ah dowladda Mareykanka ayaa cambaaraysay isku dayga afgambigii dhicisoobay ee dalka Turkiga waxayna sheegtay in ay si buuxda u taageersan tahay dowladda dimuqraadiyadeed ee dalkaas sidaasina waxaa lagu sheegay kulan ay yeesheen ra'iisul wasaaraha Turkiga Binali Yildirim iyo la taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalka Mareykanka General Joseph Dunford oo booqasho ku jooga Ankara waana kulankii u horeeyay ee foolka-fool ah ee dhexmaray labada dhinac kadib isku daygii afgambiye dhicisoobay kaasi oo dowladda Turkiga ku eedeysay inay gacan weyn ku lahaa Fethullah Gulen oo masaafuri ku joogay Mareykanka dowladda Turkiga ayaa dalbatay in sida ugu dhaqsaha badan loo soo celiyo ninkaasi oo si weyn ugu tuhumsan tahay Ankara inuu ahaa maskaxda isku daygii afgambi xiriirka labada dal ayaa galay xalay ayaa xaalad adag galay kadib afgambigii hase yeeshee kulanka iyo imaatinka General Dunford ayaa u eeg mid muujinaya isku soo dhawaanshaha labada xukuumadood dowladda Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in weeraro dhanka cirka ah oo ka dhan ah Daesh ku qaaday magaalada Sirte ee dalka Liibiya weerarkaasi waxaa lagu bartilmaameedsaday goobaha magaalada ay ka joogaan kooxda Daesh wasaaradda difaaca ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in weerarada daba joogaan kadib codsigii ka soo yeedhay dowladda ay qaramada midoobay taageersan tahay ee halkaasi ka jirta ra'iisul wasaaraha Liibiya Fayez al-Sarraj oo jeediyay khudbad telefishinka laga sii daayay ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi uu waxyeello weyn u geystay Daesh warkiina waa naga intaa kulankeena kan xigeenka ka horeysa waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo